nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa tusaalaha ugu wanaagsan ee adduunyadan kownka intan dee la joogay oo dhan sidee buu xaliyay khilaafaadkii soo maray waqtigii uu noolaa horta nabigu sala allahu calayhi wasalam qaa'id buu ahaa ilaahay baa subxana wa tacaala u waxyoonayey dagaaluu galay heshiisyuu galay inuu tanaasulay marmar nebi maxamed oo malaku jibriil u waxyoonayo oy samadu u furan tahay buu tanaasulay heshiiskii alxudaybiya la oran jiray culamadu way hayaane sulx alxudaybiya heshiis buu ahaa markaasay quraysh soo diratay nin afhayeen u ah nebi maxamed baa loo imanaya sala allahu calayhi wasalam maka in la galo oo cumradii lasoo galo oo cali bin abi aalib oo nebi maxamed in adeerkiihina wuxuu qorayaa heshiiskii articalkii heshiiskuu qoraya suhayl ibna camr wuxuu ka socdaa xagga quraysh markaasuu yihi maxay toleen qor nabigii baa yihi sala allahu calayh wasalam caliyow bismi illaahi araxmaani araxiim ninkii xagga quraysh ku socday baa yihi raxmaan iyo raxiim raxmaanka yamaama u naqaanaaye adeer maxay tole maba garanayna baano bismi illahi raxmaan raxiimta maxay qor buu yihi bismika allaahumma qor buu yihi markaasuu nebigu ku yihi cali radia allahu canhu masax wuxuu ku yihi qor markaasuu cali ma bismi illaahi raxmaan raxiim baad masaxaa haye masax waa masax markaasuu haddana yidhi nebigu sal slam isagoo nebigu heshiis doonaya wuxuu yihi kani waa kay ku heshiiyeen muxamedun rasuulullaahi iyo quraysh ayuu bilowgii dee markaasuu ninkii reer quraysh yihi haddaan ogahay inaad rasuul ilaahay ta kulama dagaalameene ina cabdilaahi baa tahay maxamed ibna cabdilaahi ibna cabdilmuطalib ku qor buu yihi ka masax rasuulullaahida markaasuu cali yihi wallahi inaanan masaxaynin cali bin abi aalib markaasuu nebigu yihi masax sala allahu masax buu ku yihi ku qor waxa uu macanta lagu doonayo qodobka saddexaad ee kasii yaabka badan tanaasulka nebigu tanaasulay uu quraysh ugu tanaasulay inuu kasbado laakiin arin kaloo ka weyn u socday waxay yidhaahdeen gaalka quraysh ka soo muslime ee kuu yimaada noo soo celi kaadiga kaa soo noqday noo yimaadana kuuma soo celinayno yani hadduu qof soo muslimuu nebiga u tago waa uu nebigu soo celiyaa kam islaamka ka yimaadee quraysh yimaadana waanu haysa iyadoo la joogu midi soo muslima iyadoo heshiiskii socdo ayuu yihi laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah markaasuu nebigu yihi noqo markaasuu magaal baad ii celinaysaa noqo buu yihi inii araaka musaciru xarbin hadda fiiri kayf nebigu fakaana rasuulu llahi sal wuxuu gaalib ka dhigi jiray maxay tanaasulkuu nebigu qaalib ka dhigi jiray sala allahu calayhi wasalam waxaa loo sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam lacag laga helay dagaalo khaniime iyo wax laga helay ayuu qurayshoo markaa u badiyey ansaartii nebiga madiine sala allahu calayhi wasalam ku haysay ee soo dhoweysay ayaa maqashay lacagtii ugu badnaydba nebigu inuu siiyey reer quraysh markaas xabbaa bilaabatay xan nebigu ma joogo annagii baa u helinay annagii baa soo dhoweynay annagii baa dhimanay maalintii lacagta u helayna ilmaadeeradii buu wada siiyey soo maanta hawli kama jiraan noocaah awow allahuma salli calaa sayidina maxamed wasaxbi wasalam hadda fiira warkii nebiga saxaabi reer ansaar ah ayaa maqlay in nebi maxamed la hadal hayo oo lagu hadal hayo maxay tolkiibuu u miisay hantidii ummadda ka dhaxaysay nebigu markiiba waa soo cararay dib uma dhigin markiiba waa dhex yimid maxaa tirahdeen buu yihi maxaa tiraahdeen saxaabigii u yimid nebiga sal l slam ee warka u keenay ayuu horta nebigu weydiiyey warkaad ii sheegtay gartaye adiga mowqifkaaga ii sheeg adigaaga warka ii keenay mowqifkaaga ii sheeg ilmaadeeradee baan la qabaa buu yihi anu tolkay waxay yidhahdeen un baan qabaana buu yihi saxaabi waa reer ansaar nebi maxamed baa laga ashtakoonaya sala allahu calayhi wasalam qaybin uu qaybiyey inuu tolkii u badiyey kuwa waan u tegi buu yihi adigaagan horta bareerahaaga ii sheeg hal ana ilaa rajulu min qawmi buu yihi anuu tolkayun baan ahay waxay qabaan baan qabaa bareerkaa la isku sheegi jiray layskuma qarin jirin nebi dhakici buu haddana hawsha waa kulushahay ansaartiibu nebi maxamed u yimi sala allahu calayhi wasalam markaasuu maxaa tidhaahdeen markaasay xishoodeen maxaa tidhaahdeen markaasay xishoodeen markaasuu yidhi anaa idiin sheegi waxaad ahaydeen inaad tidhaahdaan waxay ahayd inaad tidhaahdaan adigoo lagu eryanayaanu
ku martiga adiga oo keli ah baanu kuu hilinay adiga oo waxaa aad wixii yani galladihii oo dhan intaaba xaq baad u lahaydeen inaad tidhaahdaan buu yidhi intaasna waa dhab laakiin bu wuxuu yidhi diriq yar diriq waxa la waxa yare caruurta naasnuuga inta yare kasoo dhacaanaha yare kasoo daata halkan ayaa la yidhahdaa maxay tahay lucaaca af carabiga lucaaca la in yaroo lucaaca buu yidhi wax yaroo diriq ah oon qolooyin quluubtooda ku soo kasbanayey diintana ku soo haasaawinaya inay soo qaataan hadda waa boqolaal geela waa boqolaal lo-a waa intaasoo dahab iyo fida ah ayuu nebigu wuxuu ka soo qaaday diliqii warba kuwii wixii yaraayee kuwa ku sasabanayay uurkooda ayaad ansaaray ka cadhooteen buu yidhi idinka wax aad ku faraxdaan ma idiin sheegaa buu yidhi adduunkoo dhani hadduu halkaa maro idinkuna halkaa aad martaan meeshaad martaan baan marayaa miyaydaan raalli ku ahayn hadday iyagu adduun la noqdeen idinkuna aad nebi maxamed la noqoteen sala allahu calayh wasalam ansaartu intay wada ooyeen bay yidhahdeen radiina billaahi wa birasuulihi sala allahu calayh wasalam ku qanacnay ilaahay iyo nebi maxamed qaadanay saasaa laga rabaa markaa qofka hoggaanka ah inuu tanaasulna la yimaado mushkiladana inuu meesheeda maxay tole ku xaliyo uurka dadka waxa ku jirana uu la hadlo uu dadka uu qofku uu xukumayo iyo isagana aan loo kala sheekayn ninkii saxaabiga nebiga u yimid muxuu yidhi ka kacbu yidhi maxamedow war baa jira dadku nabad qabaan war baa baxay nebigu ma odhan iska daa ha wataane ya iyo wax ka ma odhan war ina kicibi horta adigu war rabbi adigu iyagaa la mid ah biir iyagaa la mid ah horta allah biir markii nebigu dhex dhacay sallallahu alayhi wasallam saasuu nebigu wax ku xalin jiray sallallahu alayhi wasallam jazakallahu khayr alayhi salatu wassalam